shacabka laascaanood ee birmageydada ah in la qaxiyo oo la barakiciyo oo madaafiic iyo rasaas lagu duqeeyo raalli kamay Somalilandna kuma taageersani taladu waxay gacanta u gashay ehlunaar Muuse Biixi waxaan leeyahay maxay iga xumaan jiray hadduu rag isniin taabto war dariiqa ma reer sool baa Somaliland ku furay mise Muuse Biixi dagaalka rasmiga ah xabadu afka si wacan uga dhacday wuu 20 jirsaday ilaa iyo haddana wuxuu ka mid yahay maalmihii ugu xoog badnaa laascaanood horta 4 gabay oo hore oo aan mariyay 4tiiba ilaahay waa ii aqbalay wayna socotaa wada dhageysateen jeeru dariyaan iga baxo didka laascaan waa taabaxaysa midna waxa weeyaan hadee beedankii kii ducada ah ee ilaahay barinay hadee beedankii Allah iyo bulshada sool ka goobahalka hiigay damana waxa uu weeyay horarkii ilaahay ka goohiigi jiray sool halka uu buu maraya xaaladda laascaanood ka taagan waxaynu wada ogsoonahay beelaha Somaliland kamid ah oo sabab iyo luqul hay ka timi ma jirto waxay ka timi oo dhibaatadan keenay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyo xukuumaddiisa waa talo soo jirtay oo aan cidna laga qarin hartiga waqooyi waa dhulbaantiga warsangeli ma muquuninaa mise waa la macaamilnaa waa qodobadii shirkii baligubadle waxaa la isku waafaqay ma macaamilaynaa waa muquuninaynaa lama macaamilaynaa waa muquuninaynaa dhulbaantiga warsangeli baa go'aanka beesha isaaq ahaa way ku dhaqmeen way ku dhiigaleen maalin bageed bay u soo fadhiisteen garaadada soolow ma iska kaashanaa ilmaadeerayaan sidaynu u badbaadin lahayn qarannimada Somaliland tanaaniga libaax waa markuu daadsan yahay goole umicida dhiigu dari iyo dacayda leefaaye annagu dibinta waa ruugaya doodanaan haye inaan gabayga doorkan lahaa daayay la imoodiye hayeeshee wixii igu dahsoon doqori waa mooge war jeer oo daryaan iiga baxo didibka laascaano jeer oo ay ku daran dooriyaan dabiya baaruudda jeer oo dagaagiina helay didiyo guuxeennu jeer oo waraabaha dulgaal daaca hilibkooda dayo dheragta jeer ee mashxaradaada kaga heesto oo daribta naylaha nacdiyo daylo barideeda dubbahaygu jeer uu ku dhaco daalin madaxiisa jeer oo daraawiishi oog daga la ii sheego jeeraan ilaa iyo dumbuluq dooyo ku xambaaro oo calanka daarweyn sudo oo duhur ka geeraaro muxuu hadalba ii daaliyaa durgal baan ahay midda kale waxay leeyihiin oo ku celcelinaya salaadiintoodii dawladdu doorkeeda ha qaadato warano haddaanu dawlad ognahay miyaanu dagaalami lahayn ma dawladdu aanu meeshaa ku ognahay qabiil Soomaaliyeed oo qabiil cashuur ka qaato ku soo duulay oo cuqdadu Soomaali oo dhan ka qaba iyaga kula dhacay aniga ii muuqda haddaan khaldayna waad ii sheegi kartaan waxay koos garaysay Hargeysa iyo Burco inay burburaan anigu waan garanayaa waan joogay barnaamijkii ugu horeeyay Hargeysa laga sameeyo 1982 waan joogo daarood ha dhaca buu ahaa maxamed siyaad barre ha dhaca ma ahayn maxamed siyaad barre ayaa dan ku qabay iskuul bilaash ay ku haysteen caafimaad bay ku haysteen waxbarasho bilaash ay ku haysteen koronto ku haysteen biyo ku haysteen maanta intii midna ma hayaan laakiin waxay haystaan iyagoo qabiilo isaaqeynaysa xukumaan laakiin nin beeshooda ay usan xukumin ninku yiri sinaan weyn adnadiid sarreyntiisa haddaa tiri shalay nin beel heblaha oo beeshaada iima talinayo wallaahi talin maysi wallaahi iima talinaysi waa been maxay iga xumaan jiray hadduu rag isniin taabto dhinaca dalkii fariintaasuu kuu soo diray waxbaxsiyey waduraweydka raaxadaalihii waxbaxsiyey waduraweydka raaxadaalihii ha ka baxo biyaha reerika madax u sheeya ha ka baxo uruushdiiyo daruhu iidna way kari ha ka baxo dar badan baa ku jira aan kuwa bannaanayn ka baxo
إنجن هاشنا وباقي هريدي هكبحوا ولوش لي يزهوه إذن يفرق هكبحوا تردلن دا كتيرة أنك وضع معين هكبحوا تردلن دا كتيرة أنك وضع معين هكبحوا ليها غارفة ورح وشيع هكبحوا ولوش لي يزهوه إذن يفرق هكبحوا تردلن دا كتيرة أنك وضع معين هكبحوا إنجن هاشنا وباقي هريدي